jeelka ka soo baxday walaasheen Aamina Ibraahin Cali. Aamina Ibraahin Cali waxay xabsiga ku jirtay muddo 8 sannadood ah. Maanta ayay soo baxday. Maanta oo ay taariikhdu tahay 25 Shacbaan 1446 Hijriya, iyadoo ay Ramadaan ka harsan tahay 5 maalmood 4 maalmood. Allah baa mahad leh. taariikhdaas oo ku beegan 24 bisha labaad 2025. walaashani sidee bay ku soo baxday? haddii aanu nahay kaalmee kuwan warkeedaana soo gaadhay, annaguna dadka ehlu khayrka baan u soo bandhignay warkeeda. ka soo bixiya lacagta lagu leeyahay baanu nidhi, oo walaasheen waxaa loo sheeganayaa lacag gaadhaysa $35,000 iyo boqolaal. dadkii ehlu khayrka ahaa ee jeclaa sadaqada markii ay warkeedu gaadhay bishii Jumaadul Aakhir ama bishii 12aad ee hore, waxay soo direen qof kastaaba wixii uu awooday buu soo diray si walaashan looga bixiyo lacagta loo sheeganayo iyo si ay xorriyaddeeda u hesho. lacagahaas inta u badneyd waxa ay ahayd, ama aan idhaahdee lacagaha waxa u yaraa $1 wax ka yar baa la soo diray. waxaana u badnayd 3 lacagood baa u badnaa: $5,000 oo ay gabadhi Maraykanka ka soo dirtay, $3,000 oo ay gabadhi Bakistan ka soo dirtay, $2,000 oo nin ka soo diray Switzerland. inta u dhaxaysa 5,000 ilaa $1 wax ka yarayay ahayd. qofba intii uu awooday ee ugu talagalay walaashan uu soo diray. dadka waxaynu leenahay ilaahay khayr haydinku abaalmariyo, ilaahay sadaqada haydinka aqbalo, ilaahay muraadka aad ula baxdeen ee wanaagsanaa ilaahay haydiin aqbalo. intiina caafimaadka ula baxdeena ilaahay waxaanu idinka baryaynaa dhammaantayo inuu caafimaad idinku siiyo. lacagta annagana soo gaadhay imisay noqotay? lacagta aanu bixinnay waxaan u tagnay markii ugu horreysay gabadhii intaanan hawsha bilaabinba. waxaan u tagnay gabadha sheeganaysa $34,000. laba qof weeye lacagu. gabadhi waxay sheeganaysaa $34,000 iyo $386. gabadh kalena waxay sheeganaysaa $1,200. tii lacagta badnayd baan u tagnay. waxaanu ku nidhi hawshaasaanu gelaynaa, ilaahay dartii baanu u gelaynaa, wax naga daa oo gabadha wax ka daa, ilaahay dartii u daa. gabadhaas waxay naga aqbashay oo aanu isla soo gaadhnay in waxaanu u keenno inay naga qaadato. annagana waxaa noo soo ururay lacag gaadhaysa $20,000. $20,000 ayaanu farta ka saarnay gabadhii lahayd lacagta badan, waana naga guddoontay. waxayna dhaaftay $14,000 iyo $386. gabadha kale $1,200 iyadu way wada dhaaftayba. allahu akbar. iyadu way wada dhaaftay oo horey u dhaaftayba, oo iyadaa horreysay. dumarkaa waxa aynu leenahay ilaahay khayr haydinku abaalmariyo, ilaahay khayr haydinku abaalmariyo wanaagga aad samayseen. marka walaashan waxa weeye waxaanu ka howlgallay maxkamadda, gaar ahaan maxkamadda sare iyo maxkamadda rafcaanka ee gobolka Maroodi Sheekh Hargeysa ayaanu ka howlgallay. markaa waraaqaheedii soo deynta ayaanu maalmihii ugu dambeeyey ku guda jirnay. doraadoo kale lacagtaanu shubnay, shalay oo kalena waraaq soo deyno maxkamadda sare ayaa noo soo baxday. maantana maxkamadda rafcaanka waraaqdeedii soo deyntahayd ayaa noo soo baxday. marka ugu horreysa mahadnaqoo dhan waxaa leh allah baa mahad leh. marka koobaad, marka labaad, marka saddexaad ilaahay baa suuro geliyey, walaashaana ka xoreeyey xabsiga. isaga
addoomihiisa u diray isaga arrimaha u fududeeyey ilaahay baa mahad leh sidoo kale halkan waxaan uga mahad celinaynaa cid kasta oo ku sadaqadaysatay walaashan waynakii u ducaynay ilaahay khayr ha idinku abaalmariyo ilaahay wanaag oo dhan ha idin siiyo sidoo kale halkan waxaan uga mahad celinaynaa cid kasta oo noo fududaysay howlaha markaanu ku guda jirnay ciddaas oo kale ah maxkamadda sare maxkamadda rafcaanka ee gobolka maroodi jeex xeeraalinta guud ciidamada usluubta taliyaha xabsiga gabiley iyo cid kasta oo aanu ilaaweyno oo hawshan noo fududaysay oo si u noogu fududaysay walaalayaal waxaa ku jira xabsiyada keligeed kumay jirin aamini dad kaleanu kaga nimi oo u baahan garab waxaanu wadnaa olole aanu dadkaa doonayno inaanu kaga soo dayno xabsiyada dadkaa kurbadaysan ee dhibban inay nafisaan oo ay xorriyadda helaan baanu doonaynaa allah baanu kaashanaynaa marka cidda jecel inay hawshan nagala qayb qaadato nala soo xidhiidha oo nagala soo xidhiidha lambarada kale ah eber 63 47 eber eber 966 ama eber 65 47 eber eber 966 waxaa jira qof dad u xidhan $100 iyo wax ka yar 300 500 kunka ka badan 10,000 20,000 iyo wax ka badan ba dad dhiban oo sanado badan ku xidhan baa jira dad xitaa aan lacag loo haysan oo u baahan in loo dhaqdhaqaaqo ayaa jira marka cidda jecel inay nagala qayb qaadato baaraka allahu fiikum nagala qayb qaata nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi aطcimu اljaa'ica wacuudu اlmariida wafuku اlcaaniya wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam aطcimu اljaa'ica quudiya ka gaajoonaya wacuudu اlmariida soo booqda ka xanuunsanaya wafuku اlcaaniya sii daaya asiirka ka la haysto fura ka la haysto oo ka fura waxa loo haysto walaalayaal idinkoo xadiiskaa ka duulaya nagala shaqeeya ololaha aanu u bixinnay fuku lcaaniya sii daaya ama fura asiirka waxa weeye dadka qaamoomay waa dadka ay yani sakadu u waajibtay in la siiyo waxay ka mid yihiin 8 ilaahay faray inaynu siino sakada marka walaalayaal bishii ramadaanna way dhowdahay maalmo kooban baa ka hadhay sakada dadku waxay bixiyaan bisha ramadaan bay ku beegaan iyo sadaqada guudba marka dadka jecel inay sadaqa la baxaan bishan ramadaan si weyn waxaanu doonaynaa inaynu xabsiyada ku yaala dhulka Soomaaliyeed guud ahaan aan ahayn magaalo gaara inaanu u shaqeyno marka sheekooyin badan baanu haynaa deegaamo kala duwan xabsiyo kala duwan koonfur waqooyi bartamaha wararku wayna soo gaarayaan ramadaantan waxaan doonaynaa inaanu si gaara ugu shaqeyno maxaabiista qof dabadda jooga waa qof xorriyadiisa haysta laakiin qof jooga xabsi ku jira waa qof dhibban waxa weeye ajar weyn baa ku jira dadkaas u shaqayntooda ajar baa ku jira markay ramadaan ku soo beegantana ajar baa ku jira ilaahay wuxuu yidhi qur'aanka wuxuu ku sheegay cidda sakada la siinayo waxaa ka mid ah ilaaha sarreeya wuxuu yidhi innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiini waalcaamiliina calayha waalmu'allafati quluubuhum وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم waxaan doonayaa inaan erey u idhaahdo waa qof dumar ah oo xidhnayd 8 sano
shaqaysanaysay waa qof hawlihii maanta dee ka bilaabaya sagxadda ka soo bilaabaya waxay u baahan tahay garab inaynu siino waynu soo daynay haddii aad ka qayb qaadatay soo daynteeda iminkana inaynu gacan qabanno wax u dhiibno ay ku shaqaysato waa muhiim haddii aanad hore uga qayb qaadanna iyaduna waanu kugu baaqayna inaad ka qayb qaadatid walaashan nagala qayb qaata iyadana in aanu garab siino baaraka allahu fiikum annaka u odhanayno ereygaas intaasaan ku joojinayaa anigu walaasheen baan ku wareejinayaa mikrofoonka si ay uga waranto dareenkeeda iyo ereygeeda ku aadan munaasabaddan walaal soo dhawow barakaatu waxaan u mahad celinayaa ilaahay 3 jeer marka xigto waxaan u mahad celinayaa in taliyay xabsiga ee gudbiyay arinkaygan gudbiyay taliyay Khalid ilaaha barakeeyo aad baan ku duceynayaa marka xigto waxaan u duceynayaa in Abdi Maalig Caldoon ilaaha barakeeyo ilaahay miisaanka xasanaadka ku daro waxaan u mahad celinayaa muslimiintii walaalahay soo gargaaray xuriyadina ay celiyay ilaaha barakeeyo khayr Allah siiyo waxaan u mahad celinayaa cid kastoo ka qayb qaadatay arinkayga ilaaha ka abaalmariyo marka xigta waxaan ahaa hooyo imika in badan xidhan carruur ka xidhan dareenkayga lama qiyaasi karo maadaama oon intaasoo sano xidhanahay maanta xuriye helay alxamdulilah ilaahay baan u mahad celinayaa waan xanuunsaday 3 dhakhtar baa yaayay 3 dhakhtar ii gargaari jiray askartii kala duwaneyd ilaaha ka abaalmariyo jazaaka allah khayr insha allah dub ayaan ka hadli doonaan arrinkayga ka faahfaahin doonaa maadaama oon maanta dareen weyn qaatay ilaahay khayr ha siiyo dareenkayga lama qiyaasi karo ilaahay ba qiyaasi karo bili aadan ma suureyn karo dareenkayga hooyo ayaan ahaa carruur ka xidhan intaasoo sanax xanuunsanaysa dhiikariya macaan qabta iyo dacdan ka dalooshamay haddana alxamdulilah ma qiyaasi karo waxaan se leeyahay dowladda cusub maxaabiista ku jirta xabsiga gaar ahaanba dumarka hoos u eg ayaan leeyahay hooyooyinka xidhan ee dumarka weli dhalaya hoos u eg baan leeyahay ilaahay